maalinta ugu farxadda badnayd waxay ahayd maalinta hooyaday soo noolaatay ayay ahayd. ma noo akhriyi karaysaa quraan كافها يا عنسى ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه رداء خفيا شوارع بيا خمير الدي بيانا هذا الرزق وبلارين هي marka in dawladdu wax laga fikiro maaha. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal bartaad naga daawanaysaa waa Jiblef TV iyo barnaamijkii aad alaaba nooga barateen. Muxuu ahaa sanadkii noloshaada kugu muhiimsanaa ee ku soo maray iyo bulshooyinka reer Djibouti daawasho wacan. Soo dhawaab. Waan dhaway walaal. Magaca Zakariya Ahmed. Zakariya waxaan ku weydiinayaa su'aal ah qof walba nolosha wuxuu ahaa sanadkii kugu muhiimsanaa noloshaada ku soo maray 2000 iyo wuxuu ahaa 10kii hay mashaariic fara badan man ka helay dalka Djibouti 2006 kambaski baan ka shaqeeyoon dhisay waa sanado fiican man soo marnay waa imakano de sanadun waa khayr waa la sugayaa mustaqbaladu way isdaba joogaan sanad buu ka wanaagsan yahay kullu zaman la rigaal marka zamanku waan u yarnahay wali لما مستقبل كنا نقول يا ولا إن شاء الله تعالى ونقارنا ولا نرجع كان هنا ويلي maxay tahay fariinta aad u dirayso bulshooyinka reer Djibouti bulshooyinka waxaan leeyahay seexanina dadaala waayo nin seexda naadeer Saciid dibi dhalay marka dadaalan leeyahay subaxii kaca dawladda daaya dawladda noo shaqo loo doonto ma haniyo waa in madaxaaga fikirkaaga shaqaysiisay maskaxdaada maasha shawarac biya khamiir adii biyana hada risq u ballaaran yahay marka in dawladdu wax laga fikiro maaha kaco dadaalo shaqo taga subaxii la kaca ummadda dadkana ka qayb gala wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh soo dhow soo dhawaaday way marxaba aba waxaad noo sheegtaa muxuu ahaa sanadkii kugu muhiimsanaa ee noloshaada ku soo maray wallahi sanadkii kugu muhiimsanaa noloshaada soo maray waa 1991 markaasoo shaqo fiican qabtay oo nolol fiican ahayd oo ku istiraexay oo reer fiican aan ahaa yaa dee waa kaa nimcad ilaahay إنك هاتنا دشني وحباير باي كوير هوسي ساوني كلا أي isbeddelka weyn ee sanadka iyo sanadka maanta la joogo ku yimid سنة ما ترى وسنة خير قوم والله سنة في عون يعني ودي في عين سنة كريم لما نكون يافر العتك وسنة في عين وبس بروقع دواكا سوي مكياتنا دواكا ma jirtaa kala duwanaansho u dhaxaysa sanadka adigu aad ka socotay sanadada kala dhan iyo sanadkan maanta lagu jiraa والله مجرتي سنة كماتها وفي عيه وسنة في عوية سنة كماتها وبرواقع بس برواقع adoo ka faa'iideysanaya barnaamijka maxay tahay fariinta aad u dirayso bulshooyinka reer Djibouti bulshada waxaan u dirayaa wallahi salaakaskii laabta ka soo gool intay garanaysa inta muuqaya garanaysa madaxweynaha Ismaaciil Margeeli marwadiisa Khadar Maxamed Xayd noo salaamaya aad buu salaamaya waa ka yidii wiilaya bahay oo salaamaya gidi waa ka anuguna عدنا والسلام يعني نقدر نساويها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كسر جبلة في سيفي. وكسر له هذه ما نغير هذه ما نغير. صح. سؤال بقول الدنيا. محوها سنة كي نلش هذا كوجمي هم سنة يكسمره. وها ديميركاتكي. أي كاس أو فعلا مركي عن خير شيء عيال يلي هي سي كابا أو فعلا. نلش هذا واحد بدنا كبدنا مركا روح أنا علينا اللي رابانها. لكن ديميركاتكي وحي قدام بيه وحنا نروح في كلام قليل. أو نروح عسو حالات عسو كلام بانها. مركا والله رنتي أدي أدوان كوفي عنها. وكا. بالنجار كل دونا شهر شراء نلشي هراء ديميركاتكي جوريسي ينلشي قدام بيسي. والله aad ayuu kala duwan tahay waa in noloshii hore waxa weeyaan nolol kala ku noolayd oo marka ama bulwad ama magaranayay waxyaalka oo aadan qaadan karay mad ku noolayd laakiin markii dambe waa digtay reer baad yeelatay ciyaal baad yeelatay mas'uul baad noqotay marka waxa weeyaan de saabay kala duwan tahay sax waka adoo ka faa'iideysanaya barnaamijka maxay tahay fariinta aad u dirayso bulshooyinka reer Djibouti wallahi waxaan u dirayaa fariinta reer Djibouti aan u dirayaa siba waxa weeyaan dhalinyarada waxaan u dirayaa in ay waqtiga ka faa'iideystaan oo in waqtiga iska lumin oo ay ma tacliin noqoto ama magaranayay wax kale noqoto ama technology kale noqoto inay gaaraan laakiin balwadaha iyo waxa ay ku jiraan inay ka baxaan baan ku wanaanayaa dhalinyarada Djibouti waka ma jirtaa cid aad si gaar ah uga salaamayso barnaamijka adoo ka faa'iideysanaya waxaan marka ugu horeeyaa waxaan u salaamayaa xaaskayga oo la yiraahdo Raxmaan Maxamed Xuseen Raxmaan Maxamed Khayr la yiraahdo ciyaalkayga oo aan halkan aan ku soo koobi karayn oo Muuna Xasan Muuse Ibrahim Abdirasaaq Xasan Muuse Ibrahim Fatxiya Xasan Muuse Ibrahim Dr. Xasan Ibrahim adigu aad bay u badan yihiin dhammaantood salaamaya
idiguna mahadsantiin anaguna sidoo kale ku salaamay waan ku salaamay السلام ورحمة الله وبركاته. soo dhow adoo soo dhawaanay magacaaga noo sheeg أنيس أحمد محمد. aniisow muxuu ahaa sanadkii noloshaada kugu muhiimsanaa ee ku soo maraa sanadkii nolosheeda ugu muhiimsanaa waxay waa maalinta gabadha dhalatay sax gabadha dhalatay labadii sax waa ka nooga waran farxad weyn baan dareemay inaan aabbo noqdaan dareemay waa ka sax ay haye ka waran bal noloshii markaa ka horeysay iyo tan dambe markaad awlaad yeelatay maxaa u dhaxeeyay dee wax weyn baa u dhexeeya dee aabbaad noqotay haddii khalaas dee nolol kalaad gashay farxad weyn baad muujinaysaa markaa waa intaa amino muxuu ahaa sanadkii noloshaada kugu muhiimsanaa ee ku soo maraa ani ahaan gaar ahaan wallaahi noloshu way iska badnayd laakiin maalinkii nolosha iigu fiicneed waxay ahayd maalinkii uu nolosheeda iigu soo biiray wiil aan dhalay la yidhahdo safaan maxamed ibn xuseen daar insha allah maasha allah haye maxay ahayd noloshii farxadda aad qaadatay waqtiga adoo noo soo koobay nolosha farxadda aan qaatay eeg markii hore waxaad ahayd nin awlaadaan haysan markan dambe kala duwanaanshiyaa jiraan muxuu ahaa fararka u dhexeeya markii hore noloshii hore iyo nolosha maanta wallaahi markii hore dee isla batar baan ahaa isla batarkuna dee waa nolol keliya sax waxaa weeyaan imika ahaanna insha allah waxaa weeyaan dee qoys baan galay mas-uul baan noqday reer baan yeeshay dee nolosha hore iyo noloshana maanta waxa u dhexeeya farqi weyn oo ah nolosheeda wada arkaya markii hore waxaan ahaa inay sabataro iska qaawanaa imikana nolosha dee waa awlaad ka dambayso reer ka dambayso macmuustiiba ugu yaro lagu diyaarinaya wax walba noloshay bal ka waran farxadda imika ku jirto iyo waqtigii hore kala duwanaanshaha ku jira sidee maxaad dareentaa wallaahi farqiga u dhexeeyo waxaa weeye markii hore keli baan ahaa oo dee markaan yimaado anigu baa hawsha anigu bay haysatay hawsha haddaan wax diyaarsanayo iyo haddii ugu sheegaa gogol ba haysan ma garan imikaas laakiin nin walba imika waxa kasta waa diyaar aan ku telefoon baa wax kasta ayaan ku diyaarinaya war waxaa ii diyaari xajiyooyin waa diyaar waxaan baan baanahay ii diyaari waa diyaar nolosha wallahi tii hore waxay ahayd nolol ma ku sheega karahiya laakiin imika nolosha runta raaxada imika aan galayba insha allah maasha allah adiga reerkaaga horta allah kuu barakeeyo adoo ka faa'iidaysanaya barnaamijka maxay tahay fariinta aad u dirayso dadka silibaateerka aan weli guursanay xaaladii hore aad ku jira wallaahi horta adduunka horta caynka hore maaha insha allah marxaladuna way iska adagta waxa weeyaan maanta guurku dee wuxuu doonayaa mas-uul aad u weyn qofkuna inuu shaqeeyo ma kuu sheegaa sida anu darayga aniga dee igu jira qof markuu shaqeeyo wax maarayn karayo unbuu guursan karaya laakiin nolosha guurka maanta wallaahi waa nolol aad u raaxo badan way ka macaanta nolosha kaloo salbateer waa ilaahay keli marta nagama dhigo marka qoys daadeynaysidna dee wallaahi nolosha dee iftiinkeeda markaaba ayaa hordagaleysaaba waxaan ku boorin lahaa ninkii ku raagay salbateerkow shaqadiisuna ma kuu sheega ilaahay adkayow nebiguna waa kii sheegay sal alla ly slam wuxuu ihi markay nolosha ku adkaatay ee guurina aa kari weydid ee shaqana marta soo geli weydo guuriso السلام ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawo Jib Live TV أنكو دواء magacaaga رحمة حسن علمي. raxmay su'aal baan ku weydiinayaa muxuu ahaa sanadkii kugu muhiimsanaa ee noloshaada ku soo maray والله ده سند بس سند وكفي عين الحمد لله لكن سند كأدو دميل فانتا. Demilvantia muxuu kaga duwanaa sanadada kale aad ku xulatay وسند كيجو فرحة بدنا نفتي إذا يسوم مرا مستقبل محل الحمد لله أدو والله مقال كلام تجي وصوت الحيس الحمد لله. dalxiis kaga badnaa ها. sax haye ركا والله مسكفي أنا. sax haye adoo ka faa'iidaysanaya barnaamijka muxuu ahaa kaas wuxuu ahaa sanadkii kugu farxadda badnaa aad soo la kulantay muxuu ahaa daba sanadkii kugu naxdinta badnaa iyo wixii kaa naxiyey muxuu ahaa wixii niga naxiyey wuxuu ahaa Demil Vande. Il est mort de ma grande-mère. Wakade. sax marka Demilvantia buu ahaa sanadkii kugu naxdinta sax haye adoo ka faa'iidaysanaya barnaamijka maxay tahay fariinta aad u dirayso bulshooyinka reer Djibouti والله waxaan ka leeyahay dawaaka wadankeena alxamdulillah waan iska noolaa waan iska qurux badannahay waxaan leeyahay alla iska war joogada wadankeena ma jirtaa cid aad si gaar ah uga salaamayso xaggan oo hooyaday macaan ma meex arda dar Ismaaciil mon père Hassan Cilmi toute la famille asxaabteeda tout ça haye magaca Faadmo Maxamed Waabir Faaduma su'aal baan ku weydiinayaa muxuu ahaa sanadkii noloshaada kugu saameynta badnaa ee ku soo maraa
ما شاء الله waxaa maalinkan farxay waxa kamid ah maalinkan quraanka dhameeyay ma sha Allah sidoo quraanka maalinkaasaan aad u faraxsanahay wakaas maalinkaas muxuu kaaga duwanaa maalmaha kale waxa dhameysay saa sheegtay soddonkii quraanka wallahi maalmaha dhan maalinkaaba xasuusiyo farxad qalbigeyga ka sax adoo ka faa'iideysanaya barnaamijka maxay tahay fariinta aad u dirayso bulshooyinka reer Djibouti bulshooyinka waxaan ku waarinayaa inay quraankooga si fiican u dhameeyaan salaadkooga kalena waxbarashadooda inay ku adkaadaan wakaas maadaama tahay ardayda quraanka qalin jabisay oo quraanka soo khatintay inkastoo quraanku dhamaan maadaama quraanka dhameysay sanadkaas sheegaysid ma noo akhriyi karaysaa quraan ma sha Allah waan akhrin karayaa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال أنا ما شاء الله ورت إلهي علمك قد برتي أكوكو أنفعه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله القصة دو جيب لك في القصة دو يا مقعاه أسماء نجيب أحمد أسماء نجيب أحمد asmay su'aal baan ku weydiinayaa muxuu ahaa sanadkii noloshaada kugu farxadda badnaa ama kugu saameynta badnaa ku soo maray maalinta waxay tahay dhalashadeeda talabaadna maalintan igu farxadda weyneed lama sheegay xog baa maalinta ugu farxadda weyneed way jirtaa maalinta igu murugta weyneed oo iska jirtaa ma arka horta xaaladda adduunyada wax ka soo kala kulmi kartaa wax xun iyo wax fiican bay ku soo marayaan maalinta igu naxdinta badneed waxay ahayd maalinta abtiga adeerkay familkaygii agsiidooga ku dhaceen ayay ahayd maalinta igu farxadda badneed waxay ahayd maalinta hooyaday soo noolaatay ayay ahayd marka waa ka aad iyo aad baan faraxsan yahay way nooshahay hooyadayna ma sha Allah ilaahay cimriga u dheereeyo amiin adoo ka faa'iideysanaya barnaamijka maxay tahay fariinta aad u dirayso bulshooyinka reer Djibouti bulshooyinka reer Djibouti meel ka soo joogtiin waan salaamayaa shacabka reer Djibouti oo ku dhan Aaba Ismaaciil Umar Geele Gabi waan wada salaamayaa marka waxaan rajeynayaa inaan caafimaad iyo nabad iyo cimri dheer marka waxaan rajeynayaa wallahi billahi aad iyo aad baan ugu faraxsan yahay Djibouti aan noolaatay haatan inta waxa noogu soo gabagaboobay barnaamijkeena ahaa muxuu ahaa sanadkii kuugu saameynta badnaa ee noloshaada ku soo mara ama kuugu farxadda badnaa ee noloshaada ku soo mara bulshooyinka nagu xidhan daawanaysan mid walba waxaan ka codsanaynaa inuu nin walba commentaire-ka noogu reebo sanadkii ugu saameynta badnaa iyo wuxuu la kulmay intaan ku kulmayno barnaamijkan iyo barnaamijyo kale oo ka xiiso badan waxaan idinkaga tegaynaa salaamu alaykum